isugu jira habka ay u fuliyaan dagaalka beriga iyo badda isticmaalka hubka kala gedisan sida ku dagaalanka gaadiidka teknikada iyo qoryaha fududba waxa kale oo goobta lagu soo bandhigay habka ay ula dagaalamaan burcadbadeeda iyo tahriib taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa ciidamada tababarku u soo xirmay waxa uu u jeediyay hadallo dardaaran ah wixii aad ku ballanay oo aad ku dhaarateen inaad fulisaan oo aad dadkiina iyo dalkiina aad u shaqaysaan waa muhiim taas ninka walba waa inuu taas diinta ku hayo ma aha inaad mushaar ku xisaabtanto ma aha inaad ku xisaabtanto tuurtaan iska qabaa meel baan iska marayaa waajibaadkaadu waxa weeye inaad naftaada u hurto dadkaaga iyo dalkaaga daasoo waa xil weyn baan leeyahay taas ciidamada maanta tababarku u xirmay ayaa ah qaybtii 8aad ee tababar ciidan loo soo xiro kuwaasoo ay maalgelisay dawladda Imaaraadka Carabta in ka badan 15 askari oo galay kaalimaha sare ee ciidankaas ayaa waxa la gudoonsiiyay abaalmarino Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso